sheekh manuur ay sheekeynaya hadda ka hor FEC-gan hadda la isku wada tagay oo looga reestay lacagii gacmaha lagu qaadayay meeshuu ka soo fikiray iyo meeshuu ka keenay ayuu habeen iga sheekeeyay marka hadda waxaan arkayay laboorkan arkayay maanta banaanbax ay sameynayaan shaqaalihii ayagoo ka cabaadayo shirkad ajaaniba ka cabaadayo waxaan leenahay waa runtii horumar lagu farxo oo ay gaareen dhalinyaro Soomaaliyeed dalka gudihiisa wax ku baratay ka fikirtay siday u horumarin lahayd teknolojiyada inaan caawa isugu nimaadno halkaani guul ayay noo tahay runtii saan la wada soconnaba aniga 98kii ayaan waxaan ka tegay waddanka markaan ka tegayay xilliyadaas ayaa hormuud oo loo yaqaanay barakaad ayaa markaasi waxay keentay internet iyo telefoon mobile ah markaan baxay mobile ayaa jiray oo dhuuban oo bahal yaro atendale wadamada adduunka qaarkood oo xasilooni ka jirtana lagama aqoonin marka hormuud looga maaragtay internet ayaan helaynay xagga markaan meeli aan tagnana bacda siniin 2 sano 3 sano kadib ayaan waxaan la kowsanay internet oo computerka la ag fadhiisanaya ah ayaa maaragtay iyaduna la soo gaaray marka waxaan leeyahay sida aan uga hormarnay teknolojiyada dawlado badan ee xasilooni ka jirtay ayay tabaar qayb ka tahay maanta inay systemkii ay keentay dakhligii gobolka Banaadir runtii aniga iyadoo shaqaynayso ayaan imiday oo maaragtay maamulkii iga horeeyay oo suuro geliyay oo horda kaarsho iyo nagala fadhiyo iyo rag kale oo fara badan arrinkaasi markaan arkay waxaa ii muuqatay in maaragtay lagu aamini karo shaqadii dawladda hoose oo laga gudbay lacagii gacmaha la isku dhaafinayay oo looga gudbay system looga gudbay dakhligii dawladda hoosena xilligaas ayaa wuxuu bilaabay inuu kor u kaco waxaana u sababa tabaarak marka waxaan leenahay in dadkaasi noocaasi ah ay maaragtay ku waxbarteen dalka gudihiisa iskuna kalsoonaadeen waxaan leenahay dadkaynow idinku isku kalsoonaada waa horumaraysiin waana guulaysanaysiin haddaad isku kalsoonaatiin waxaad arkaysaa meelaha qaarkood sida hadee laga dhawaajinayay shirkado ajaanib ah ayaa dabada lala gelayaa iyadoon la isku kalsoonayn war shirkadda ajaanibka waxba kuma dheera soo ma garan beriga hore oo waddankan joogi jirnay dhowr kulliyadood ayaa la xiisay jiray funuunta la barto waxay ahaa jirtay hooyada waxay leedahay igaarka caafimaad ma ii bartay waxay dhihi jirtay igaarka injineer ma ii noqday hadda maanta injineer iyo caafimaad waxaa ka hormaray maaragtay IT ma barayo teknolojiyada ma barayaa ka horreysa hadda ayaa hadda socoto marka waxay noqotay fan kale oo ku soo kordhay ayuu noqday waddanka oo runtii aad iyo aad dhaxalgal u noqday ayuu noqday waxaa arkaysaa dadkayna kalsooni darrada mararka qaarkood markuu joogo dhakhtarkan isbitaalkaani markuu ajnabi joogo iyo markuu qof Soomaaliya joogo midka ajnabiga jooga loo yaacaya qofku markuu Madiina degan yahay ama Dharkeenley degan yahay haddii looga sameeyo maxallaad waaweyn ku qanci maayaan ama jaamacad looga furo waxay aadayaan magaalada marka sida aysan dadku wali kalsoonidaas uma abuuro waxaan rabnaa marka inaan isku kalsoonaano si aan horumar aan u gaarno hadda waad arkayseen Afrikaanka East Africa iba gaareenba sida hadda noo muuqanaysay Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo Tanzania iyo aan arkaynay sheekh manuur ay sheekeynaya hadda ka hor FEC-gan hadda la isku wada tagay oo looga reestay lacagii gacmaha lagu qaadayay meeshuu ka soo fikiray iyo meeshuu ka keenay ayuu habeen iga sheekeeyay markii dalka dawladda Ethiopia ay soo galeen 2008 miyaa maqan meelaha sidaan manus 6 maqaane ayuu Sacuudiga joogay wuxuu Malaysia tago Malaysia anigoo joogo halkaas anoo habeentii ma jira dhex fadhiyo ayaan joornaal intaan soo qaadanaan aqrino markaasaan ku arino barnaamijkan halkii baan ka soo qaadno waa ka maanta dhaxalgalka noqday marka waxaan leenahay maskaxda dadka qaarkood Ilaahay aan ugu badiyaan leenahay waxaan rabnaa insha Allah caawa hambalyo runtii fursadda aad ay ugu yaraaday laakiin markay yiraahdeen tabaarak shahaadana la guddoonsiiyay ay ugu martigeliyeen ayaan waxaan door biday inaan muuqaalkayga aan keeno waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa qosolkuba hiila waa galay tira Soomaalidu marka inaan soo fadhiisano halkaani waxay garab istaag u tahay
tabaarag ay u tahay garab istaag waxaa laga dhawaajinaya intaasoo kun oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah inay shaqo abuur u sameeyeen waa dareemi kartiin marka maanta baahidaan u qabno shaqadaan u qabno dhalinyaradayna maxaa tariibka ku kalifaayo maxaa magafajidka u istaajiyey maxaa shabaab u diray waa baagamuudo waa shaqo la'aan calaa kulli xaal marka waxaa la cid kastoo haddaad cid shaqo sii karta shaqo sii kii shaqada haystana waxaan leenahay hala dhaafo ha shaqaystee hala dhaafo ayaan leenahay marka hadda waxaan arkayay laboorkan arkaya maanta banaanbax ay samaynayaan shaqaalihii ayagoo ka cabaadayo shirkad ajaanib ka cabaadayo runtii dawaa nasiib darro waxaan rabaa marka dadkayna in lagu xushmeeyo laguna ixtiraamo meesha ay wadankooda ay joogaan hadday ka waayeen ixtiraam ma wadan shisheey ka helayaan waa maya marka waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay dee raalli ahaada wasiir dowlihii gaashaandhiga meesha fadhiyo haddii shayda qabatay gudoomiye ku-xigeenka iyo rag badane marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad